فريق كسنوا ورك الشريعة تبنى كارجو كتلة كمان كارجو taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi Shariif al-Arwaax iyo saraakiil hogaaminaya oo kormeer la xiriira howlgallada ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan deegaanada Galmudug ku soo maray magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado ayaa maanta soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowladda goboleedka Galmudug halka oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka General Maxamed Tahliil Biixi taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayaa kormeeray xarumaha ciidamada qaybta 12aad iyo kuwa commandoska Gorgor ee ku yaala deegaanada dhaca koonfurta magaalada Dhuusamareeb oo howlgallo bilihii u dambeeyay ay ciidamadu ka wadeen looga awood roonaaday maleeshiyaadka al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbixino la xiriira howlgallada socda iyo guulaha laga soo hooyay tilaabooyinkii u dambeeyay ee ciidamadu ay qaadeen ka dhageystay saraakiisha ku sugan furimaha hore kuwaasi oo xusay in dhaqdhaqaaqyada ciidamadu ay sameeyeen laga soo hooyay guulo wax ku ool ah oo suuro galiyay in deegaano badan ay isaga cararaan maleeshiyaadka firxadka ah ee al-shabaab oo u babacdhigi waayay awoodda ciidanka qalabka sida General Maxamed Tahliil Biixi taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka oo furimaha hore kula hadlay ciidamada iyo saraakiisha ku jira howlgallada furimada ah ayaa ku amaanay kaalinta ay ka qaateen badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee muddada dheer la dhibaatoonayay caburinta iyo cagajugleynta argagixisadu ku hayeen isagoo geesta kale kula dardaarmay ciidamada xoogga dalka inay u dhimriyaan shacabka ku sugan deegaanada laga xoreeyay cadawga kuwa oo muddo dheer sugaya gacan dawladnimo dadka shacabka oo u adeegayno u nimidna hal amaan geliyo hal tuso inaan ayaga u shaqaynayno u dhimanayno waa ceeb annagoo ayaga u dhimanayno dalkayna u dhimanayno in dadka shacabka naga soo eed sheegto ama kuwa aan dariska idin la ahaadeen ama markaan howlgalka gallo kuwa aan dhex mari doonno ha ahaadeen intaba dadka shacabka ah waa walaalihiin hal soo dhaweeyo cadawga dadka shacabka la dagaalama oo cadawgii baana ka dulqaadaynaa marka haddaan anagu la dagaalayno soo laba cadow ma noqonayno oon dhibaatayno cadawga naga soo horjeeda ee al-shabaab wuxuu dadka ku sameeyaa dhibaatooyin iyo culays dadku xamili waayay ummadda Soomaaliya oo qof walba leeyahay war dadku waana dhibaana naga qabta wiilka yarka oo 10 jirka waa ka kaxaysanayaan gabadha waa ka kaxaysanayaan dadkaas meesha jooga xoolaha ay haystaan bay ka qaadanayaan cunnada ay haystaan bay ka qaad maxay kale ku nool yihiin intaasay ku nool yihiin waa dadka dhiigooda ay cabahayaan annagu dadka dhiigooda waa inaan u badbaadinaa oo waliba madaxaad u salaxdaan oo hooyada oo man aad biyo siisaan oo sonkor siisaan intaasna waa la idinka rabaa kormeerka taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa ku soo beegmay xilli ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanada Galmudug ay wadaan guluf dagaal oo argagixisada dulbadiiba looga saaray deegaano ay muddo dheer dhuumaalaysi ku joogeen Cabdullaahi Warsamo Roble warbaahinta ciidamada qalabka sida Dhuusamareeb